ururka suxufiyiinta gobolka Saaxil ee magaciisa la yiraahdo Saaxil Media Organization ayaa maanta shir ay isugu yimaadeen ku doortay gudoomiye ku xigeen iyo xog haye uu ururkaasi yeelan doono shirkan oo ay shir gudoominayeen suxufiyiin ruucadaaya oo ka mid yahay Cabdislaan Xariir Sheekh Ismaan Nuur iyo Maxamed Ismaaciil Maxamed Biid ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha ururkaasi yeelan doono oo ah Yaasiin Jaamac Cali oo ka mid ah suxufiyiinta gobolka Saaxil iyo xogayaha ururka Sidiiq Carab Saleebaan halka Muuse Jaamac Maxamedna loo doortay gudoomiye ku-xigeenka uu ururku yeelan doono musharaxiinta oo mahad celiyay suxufiyiintii soo doortay iyo waliba inta aan dooranba ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa horta maanta halkan waxa isugu yimid suxufiyiintii gobolka Saaxil hawl in badan soo jiitamisay ayaanu maanta gabagabeynay waxaanan aad ugu mahadnaqayaa suxufiyiinta halkan maanta isugu yimid ee hawshan ka qayb qaatay ee gabagabeeyay si ururka saxaafadda ee gobolka Saaxil uu hore ugu socdo marka labaadna waxaan aad ugu mahadnaqayaa shirkudoonka laba nin odayaasha ee ka mid ah suxufiyiinta waaweynada gobolka Saaxil Cabdislaan Sheekh Ismaan Nuur iyo Maxamed Ismaaciil Biid oo iyagu hawshan saaka naga soo gabagabeeyay horta anigu gudoomiyahan way sharafteen idinkama xiniyo badni idinkama fiicni waan idinku mahadnaqayaa si ay doorateen waxaan ballan qaadayaa inaan suxufiyiinta gobolka inta maqan iyo inta imka codkaysiisaba aan cadaalad ugu shaqeeyo cadaalad ugu dhaarto oo aanan cidna cid ka eexaysan cidna cid ka soo dhawaysin halkan aad uga mahadnaqayaa wariyaasha gobolka Saaxil ee noo codeeyay iyo kuwa aan noo codeynba waxaanu ballan qaadaynaa inaanu isku keenno suxufiyiinta gobolka Saaxil ka hawlgala kuwa halkan joogin iyo kuwa halkan jooga si la isku xidh lahaa suxufiyiinta gobolka Saaxil mid u noqon lahaayeen bismillaahir rahmaanir assalamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh dhamaan waxaan mahadnaqayaa suxufiyiinta gobolka Saaxil Media Group ay codeey xogayu horeeyay ururku yeesho intii aan aasaasnay ururka suxufiyiinta halkan maanta waxaynu isugu nimay inaynu doorno gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Saaxil musharax waxa uu ah runtii Yaasiin Jaamac Cali rag kale oo ugu yaraan la sharaxnaa gaar ahaan nin odayso wuxuu sheegay inaanu ka soo qayb galay shirka sidaa daraadeed xubnaha ururka uu soo diyaar garoobay doorashadaasi waxay diyaar u yihiin maadaama musharaxii kale isagu isugu tagay goobta in Yaasiin loo codeeyo oo cod majority halan ka qaato xubnaha maanta ka soo qayb galay shirkan waxay noqonayaan ilaa 12 xubnood bismillaah waxa doortay Yaasiin Jaamac 12 xubnood oo ka tirsan ururka saxaafadda gobolka Saaxil ساسان وكويا قدومي وانيرا سماها إلهي وحنو كبرينا إلهي حلقة وفضيو أتكون قرب قشان وحي بايلها إيه صحافة إيه قبل كتير واحد قاعد بعدين ياسين تنكروا تادو وسعد محمد محمود سعد تايوان تلفزيون كعالمي SBS مقالة بربرة